بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن كفر حسنا هاي إن ما تقيب كان نقضاء حفيز كقل كنعسي أو سنة جرسدي أو قام كيسا يتيم كذا اللي يردا أو كشقية إن أمهد عليه ونيرهدو همبليو وحنديه لا يرونتي سومالي دو حبهين دد آمنة وشقدو دنا كادك شقدو دنا يتيل هذا هاي balankana ilaaliya inta hadoo xafiisku sida looga bartay oo sii joogteeyo waxaan rajaynaynaa Soomaaliya oo dhan xafiis u adeegi karo inuu noqdo maamulka xafiiskuna ay ku fikiri doonaan inay sii balaariyaan si uu noqdo xafiisku oo qayb kaga noqdo yaraynta saboolnimada iyo tahriibka maxaa yeelay xafiiskan gal ganacsi uu ka duwan yahay xafiisyada kale inta badan waxa ka shaqeeya dad daadooda u dhaxayso 35 22 jir oo maanta ku qancay inay dalkoodii hooyo ku noolaadaan waalidiintoodii ay jaar la noqdaan amba qaarkood maanta ay yihiin dad caruur leh oo xaasas leh oo dadka waxa kamid ay gacanta ku hayaan waalidiintoodii taana waxa sabab u ah shaqo abuurka sabab u ah marka ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin amaano iyo waxay u baahan yihiin tayo iyo waxay u baahan yihiin waqtiga la dhooro marka inta xafiiska maadaama laga bartay oo yahay xafiis lagu soo hagaago waxaan kula tali lahaay inay insha Allah taala howlahooda inay tayayaan amaanadii laga bartay inay sii adkeeyaan waqti dhooritii laga bartay inay ilaaliyaan hadalkii wanaagsanay oo ahay in dadka la isku wado midka xun iyo midka fiicanba in maaragtay sii joogteeyaan anigana waxaan leeyahay hambaliyo Allah ni barakeeyo ummadda Soomaaliyeed waa halka meel oo Ilaahay uu ka eego amaanadu waa wax weyn nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ku leeyahay la amana la iimana liman la amanata lahu iimaan malaha ruuxan amaana lahayn marka maadaama dadku bulshada Soomaaliyeed bulsho muslima ay tahay iimaankaagi oo ahay an tu'mina billahi waxa lagu xiray inaad amaana leedahay hadii marka amaana laga waayo meesha waxa ka baxay inaadan iimaan lahayn wala diina liman la ahda lahu hadii aadan balan lahayn aadan balanka dhoori karin ruux hadii la balamana cabsi laga qaba tahayne waxa meesha ka baxaysa inaadan wax diina lahayn marka xadiiski Musnad Ahmed buu ku yaalaa waana saxiix marka insha Allah taala xafiiska waxaan leeyahay hambaliyo hogaamkiisana waxaan leeyahay hambaliyo waa rag anigu aan shakhsiyan aan garanayo oo dhalinyaro ah ilaahay baa umada ilaaliya Allahna ilaaliyo nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ihris ala ma yanfa'uka mu'minu ku dadaal wixii ku anfacaya waxaana anfacayo dadka amaanada leh ee maanta farakutiriska ah ee adduunyada ku nool inaad kamid noqoto nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu sheegay oo asmaada qiyaamaha inna min ashradi saa'a waxa kamid amaanadu inay yaraato ay dhici doonto in la yiraahdo reer hebel oo la garanayo hal nin ba amaana kale marka waa ku faraxsanahay in amaanada la ilaaliyo runtii insha Allah taala dunida maanta eraygaas markaan ka hadlaynaa amaanadii ayaa aad u liidato marka insha Allah taala in amaanada laga cararo ruuxi amaana lana inuu maalin walba Ilaahay baryo oo isku baqo xafiiskana waxaan leeyahay Allah barakeeyo horena u sii socdo insha Allah